waxaan rabaa halka inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ururka argagixisada Daacish la shaqeynay ee magaalooyinka ku sugan ee aan furimaha lagula dagaalamay joogin taakulada ka qayb qaadanay dadka lacagaha ka qaaday dadka gudbinay iyaga ku soo degayay shirkadaha u furto ganacsadada ka dhigay qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyay dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 casho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan inay hawshaas ka baxeen cadeeyaan liisaskooda waan haynaa magacyadooda waan haynaa 7 bari gudahood cidii ku imaan weydo dawladdu tallaabo sharci ka qaadi doonta dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan waxa ku jira culimo waxa ku jirta ganacsato waxa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halka aan ku faahfaahin doono 7daas bari waxaan ugu talagalnay anagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena fursadaas inaan siino khaladka ilaahay baa khaldama ah ninkii khaladkiisa ka soo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dawladdiisu inay cafis fidin doonto qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadawga ay soo duulay 7daas bari cidii isku soo dhiibaysa dalalkooda ku noqonaysa isaga tagaysa fursad bay haystaan waan ognahay maata ku jirta xaasas baa ku jira carruur bay keensadeen hadday maqlayaan ma doonayno inaan maxas iyo maataleyno ay isu soo dhiibaan dawladda Puntland haddii intaa dhici weydo waxaan rajaynayaa dawladda Puntland tallaabada ku habboon ay qaadato